السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا شكوين كأي أنا كنا دعوانا صنبلو في ليك سعر السوق يوتيوب كيلاوين إن سبسكرايب تراهن أسحبتن وشير كريسان شكل ما تحكوا ساسون تينا اللي له بيك وات كل بديدة يرير كودي شارك قويس كي مجالدي ولا وين أنت عمال تشاني عربة دكتي ترى محكوا دعين أنت مية إسكت وحسته مية لدلي مية لحظة waxa ku dhacay intaanan ogaan iyadoo kiiskeena uu yahay kiis la xaliyay oo ogaan waxyada ku dhacay si horta aan in yar inaan taariikhdeeda dib ugu noqono inantan Biki magaceeda caadiga Rebecca ayaa la yiraahdaa waxay caan ku tahay magaca Biki inanta waxay hooyadii aabbaheed xisbiyada uur ku jirta inkastoo meelaha qaar ay yiraahaan iyadoo laba jira ay hooyadeedii aabbaheed isfureen laakiin badanku waxay badan yihiin iyadoo uur ku jirta hooyadii aabbaheed isfureen adigu inantaas hooyadii aabbaheed markay isfureen kadib hooyadeed bay la joogtay inantan waxay leedahay walaal iyada 2 sano ka weyn walaalkaas iyada 2 sano ka weyn iyadu hooyadeed bay la wada joogeen hase yeeshee markii 2 jir gaadhay ayaa iyadii walaalkeedba aabbaheed baa soo qaatay maxaa yeelay hooyadeed way hayn kari weyday dhaqaale ahaan iyo siyaabo kale awgeedba ciyaalkii way hayn kari weyday hooyadii kadibna aabihii bay iskaga keentay aabahaas wuxuu xiriir la leeyahay gabadh isma qabaan laakiin xiriir bay wada leeyihiin yacni waa gaalo marka gabadhaas ayuu isagna ciyaalkiisa u dhiibay gabadha xiriirka uu leeyahay guriga ku wada nool yihiin gabadhaas waxay leedahay wiil 12 jir Rebecca amba Bikidaasan ku wadana magaca Biki waa fudud Biki iyadu waa 2 jir inankan gabadha kala dhashayna waa 12 jir yani 10 sano ka weyn yahay kadibna odaygii labadiisii ubadka ahaa gabadhan ma u keenay gabadhan gabar wanaagsan bay ahayd ciyaalka si isku mid u hayn jirtay iyadii wiilkeedii labada ciyaal kalaba way u sinaayeen se wiilka ay dhashay ayaa ubadkan cusub ee gurigooda imi hooyadood la qaybsaday karahay oo nacay waliba Biki buu aad u sii nacay maxaa yeelay Biki walaalkii uu yara weyn yahay isagu xoogaa uu la soo yara ciyaari karay maadaama isagu 4 jir ahaade kan 12 jirka xoogaa uu la yara ciyaari karaa laakiin tan 2 jirka hooyadiina waa tan tan yar 2 jirka markasta iska haysta lama ciyaari karo kadibna wuu karheebay inantan yar ifku ku nacay ifka ha ugu nacay marka waa isaga ciyaaro waa 12 jir se inantan Biki markay 13 jir noqotay uu sagnadeed noqday 10 sano ku dara 10 sano ka weyn 23 soo maaha 23 markuu noqday inantan 13 jir noqotay wali sidii inantu nacibi wuu caayaa intan wuu aflagaadeeyay inantu waliba way buuratay يعني إن يرى بورنا بورور له يعني أي نقطة كدي من أنت بورورتي دك عايا سواء كنت كسكول كنا بورورتك عايان إن أنت عقدت بك قاعدة بورورتي دن عقدتك قاعدة ستريس بس كفرماي أنت دي بتروان دي معنا أنت صار دوبته إن أنت نايبة ستريس كان بورورتي ديك قاعدة وحوجت ترسمي إن حنون ليله أنت ديس أما إن eating disorder ليله أي قاعدة أنت دي بان عن كريم بقى inantii cunto la'aan awgeed dhakhtar baa loo dhigay dhakhtar markii la dhigay in badan bay dhakhtarka taalay xataa waxbarashada qayb bay dhakhtarka ku dhigatay inantii dhakhtarkii way ka soo baxday ma sha Allah way caafimaaday dhinacii caafimaadkii jirka iyo kii maskaxiyan ba way soo roonaatay waana dhuubatay ila qofkan wax cunayn bay hayday way dhuubatay baruurta way ka dhacday inan dhuuban bay noqotay xadux tufaaya ayay noqotay yani say doonaysay ayay noqotay marka wixii stresska ka qaadi jirtay wada wax kan ka dhamaaday waxbarashadeeda si fiican bay iska waday si kii gabadha aabaheed uu qabo muxuu ahaa wiilka dhashay wili daba socda inanta yar markuu xataa taad dhuubatay wuxuu ku rahaa wili waa food xunta bahal ahaan baa lagu dilayaa soo inta ku dhahaa inanta way qurux badantay laakiin kan sagal iska daba dhigay adoo hal dhamaan wax noo socotaba maalmaha ka mid ah markay sanadku ahaa 2015 sheekadina ku wadeegtay 2015 2015 bishii 18 ayay inantan Biki xaflad bay aaday xafladda markay aaday kadib ay ka soo baxday ay guriga saaxiibadeed ay habeenka hooyatay guriga saaxiibadeed habeenka hooyatay subaxdii soo noqotay ay gurigoodii bay ku soo noqotay gurigoodii markuu soo noqotay ayaa xaaskii aabaheed uu qabay ayaa ku xanaaqay tii xal xaga ku maqan xaga u dhaxday maxaad guriga ugu dhaxaysaa way ku xanaaqday adigu xogaa isku yara qeyrqeyriyay kadibna islaantu iska baxday islaantu iyadu lafteedu dhakhtar bay aaday way xanuunsanaysaa xanuun bay qabtaa waxaan naga magalin maadaama aan sheekadeen ku qosaynin xanuunkay qabto si dadka faduusho dhiman ay halkaas ugu soo qoray xanuunka qabto kadib islaantu markay dhakhtarkii iska tagtay
ayaa way kasoo noqotay mid kasoo noqotay gurigii timi ayaa waxaa aragtay biikidii in gurigii jooginba haatan imka la hadlayan ku lahaa xagee ku dhaxday xagee dana qabata guriga markaas laanta waxay kaga sii tagtay inankeedii weynaa Nathan bayna kala ilaha inankeedii weynaa ee Nathan iyo inan uu xiriir ka dhaxeeyo isma qaba xiriir ba ka dhaxeeyo waana gaalo mar labaad ilaawiya xiriir ba ka dhaxeeyo gurigaani kula nooshay inantaasu inantaa muxuu ahay xiriirka ka Ethan ka dhaxeeyaan ambe kiide inanta yar iska daba dhiganayay magaranaysa way Nathan kala ilaha inankaas inantan xiriir ka dhaxeeyaan uu gurigooda keenay wuxuu xiriir ku dhex maray iyadoo la 14 jir la yiri ma garanay gaalada iyagu 14 jir sanad labaatan oo ha yani wax illegal weeyaan laakiin ma garanay sida xiriirkooda uu sii socday aduu inanta wax madaxu ka haystaa wuxuu ku raha sameeba way sameeysaa kibita rumudiyad soo wada umbalay kadibna wuxuu ku guriga kaalana kan la deg bulshadadeedii bebe soo qaarto gurigooda la degantay marka inantaas iyo saga ay guriga sii joogay iyo deetaa biki iyo islaanta ku sii xanaaqday markuu guriga sii tagay saddexdaas guriga joogay markii kadibna islaanta soo noqotay tii biki weydii bayigi weydiisay xagee biki qabata tan uu wiilku xiriirka la leeyahay ayaa ku tiri ma garanayo anigu dibadda u soo yara baxay halka beerta oo sigaar doonayay inaan cabo ayaa waxaan maqlay abaabku si xoog qamil looga siinay sidii qof xanaaqsan markuu abaabku xuraayo kala maalinta ayaa maqlay kadib waxaan sii kulliba bikidii ay maagtay islaantoba dibadda u baxday marka ma garanayo laakiin abaabkaan maqlay awgeed waxaan malayn inuu baxday deemkana ma taasoo ma joogto ay jir I went into the kitchen to get a cigarette and went to go outside to have a cigarette. My daughter started whinging because she wanted to come out with me, so I took her down to the garden to help feed the rabbit while I had a cigarette. Then I heard the front door slam. waxaa la sii way baxdaa saxaabteedii bay tagtay maalintaas iska maqnay maalin labaadkii baan ay noqotay inantii biki soo may noqon saaxiibadeed baa u yimi kayada isla socdeen iyo hablaha saaxiibkay ahaayeen baa qaarna la soo hadleen kayada inantii biki wiilka isla socdeen oo uu mareeg ku biki telefoonka niga maqan safariinay ma qaban sameeyay wuxuu leeyahay man inuu neel joogin yani way naga yar xanaaq waxa inag neel joogtaa kadib markay reerka ogaadeen inaanay inantu saaxiib dadkoodii saaxiibadeed oo dhan aan midna tigin aabaheed ayaa booliska wacay waxaan ku yiri How can I help? It appears my daughter's gone missing. No one has seen her, no? No. kadib booliskii hawshoodii bay bilaabeen maadaama inantu laba cisho la laayahay baaritaanki bay bilaabeen aabihii iyo hooyadii yani hooyadii dhaba maaha laakiin xaaskii aabaheed iyo odaygii inanta aabaheedba wax soo fadhiisan telefisyoonka iyagoo beer la xawsanaya haddii inantoodu ka xanaaqday ay guriga ka dudday iyo haddii la xadayba labadaba iyagoo beer la xaws sameynaya oo leh inantaydii noo soo noqo hadda naga xanaaqdo aan ku jecel wax noocaasa sidoo kale haddii lagu xadayno waxay lahaayeen qofkii xadayo noo soo celi haddaan inantu naga maqnayno qof xadayo qofkii xadayo noo soo celi waxaad doonaysid baa sameynaa waxaad doonaysid waan ku siinaa lacag doontaan noqoto wax noocaasa ay tv ka yidhaaheen kadib jaarkii magaaladii Bristol dalkii UK dhammaan muxuu hayay reerkaas way u naxeen iyo inantaa yar way baareen hashtag la sameeyay hada social media leeyahay fahim biki wax noocaas la soo qorqoraya la sameeyay inantaana meel kasta waa laga baaray wabiyada laga baaray badaha laga baaray buuraha dooxyada meel kasta waa laga baaray yani markaan ku leeyahay wabiyo xasaa laga baaraya maxad horay inta ba kaloo bay noqotay yani wax la leeyahay inta la dilay meedkeedii in halka lagu ridayo lagu qarinayo wax noocaas laga baaraya kadib askartii yagna markii arintan noqotay yani qadiyad dadkoo dhan ruuxday qulubtooda markay noqotay yani arintii aad bay u sii baareen say yani sumcad ugu helaan markay arinta xaliyaan kiiskan markay baareen askartu waxay sameeyeen boolisku baaritaanka dabiiciga ah ee ahdee qofku marka qofka la waayay dadku ku dhawaa ayaa la baaraya soo kale maalinta la waayay cidii ugu dambeysay ay arkaan ba waraysi lala sameeyay yani saas oo sida dabiiciga ah dambaariyaashu sameeyaan markay sameeyeen kadib inantii shoona la yiraahdo muxuu hayay xiriirka ula lahaa inanka Nathan la yiraahdo islaanta ay dhashay inantaas markii la wareysanayay yani
waa laga yara shakiyey waayo qosol yaroo iska nooc min kala abay qoslaysa markii la wareysanayay marka askartu taa way ka shakiyeen mar labaad bay wareysi kusoo celiyeen maalin labaad bay wareysi keeneen iyada say bas ilaahay inuu hadalka uga soo dhacayo wax noocaasa I wouldn't know that. Yeah. How is he finding it? He's found it quite hard actually. Again, he's kind of more thinking, my God, if it was, Yeah. or again knowing how hard it'd be for his mum at the moment. You know, because Becky was almost like a daughter to her. Yeah. baaritaankeedii sii wadeen gurigii bay baadheen gurigii markay baadheen kadib ayaa waxay arkeen in qolkay biiki ku jirtay gidaarkiisa qolka biiki gidaarkiisa dhiig bay ku arkeen calaamado dhiig bay ku arkeen sidoo kalena waxay ku arkeen muxuu haayay far yani calaamadii farta ayay ku arkeen basma amba fingerprinting ayay ku arkeen gidaarka marka dhiigaas waxaa iska leh waa dhiig biiki ay leedahay fartaana waxaa iska leh inanka Nathan hayay waaba noo dhantay askartii yidhaaheen dembaariyaashii yidhaaheen Nathankii baa lasoo qabtay shoonadii iska qoslisay iyadoo wax kale kuma hayaan qosolkii markii hore weli loo socdaa waxay leeyihiin waxbay ogtay tan iyadaaba ku horeysay ka shakiyeenba tiin way kusoo dareen markay kusoo dareen ay wareysigii dub wareyska dambe wareysameeyeen ayaa gurigiina isagna aad bay usii baadheen gurigii markay baadheen ay meel kasta kasoo reeyeen ayaa waxay arkeen suuli guriga ka mida suuligaasoo ay lama isticmaalay laatay waayo araab badan iyo xafish badan ba suuliga ka buuxay si suuligu xafish badan ka buuxay aad buu nadiif u ahaa guriga kale in ka badan ay suuligaas nadiif ahaa kadibna suuligii way ka shakiyeen dambaalaasha waxa uu caada ah meesha markay arkaan guriga kale ka nadiifa in ka badan inay ka shakiyaan waxay ka shakiyaan in meeshan dhiig wax noocaas laga mayray waxay soo qaadeen chemicalka lagu ogaado meeshan dhiig laga mayray in kale chemicalka waxa la yiraahdaa aluminum hydrogen peroxide chemicalkaas meesha ku shubeen meesha way ifta chemicalkaas marka waxa weeyaan meesha dhiig laga masaxay way ifisa ifnin yar buluug wax noocaas ay sameeysaa akhta buluug wax noocaas oo kala adu ifnin yar ah ay sameeysaa marka meesha way ifta inanta marka hore waxa la islahaa way nooshahay laakiin imika dhiig marka meeshii la arkay intu inay dhimatay dad wax noocaas oo kala hadii kale inay dhaawac halis qabto ayaa loo maleeyay sidoo kale meesha waxa laga helay rasiid alaab lagu soo iibsaday alaabtaas waxa weeyaan miishaarta korontada ku shaqeysa goloofisyo muraayadahan waaweyn ee marka waxa sameynaya la xidho muxuu mask amba face mask weeyaan bahalka saas loo soo xidho alaabtaas laga helay يعني alaabtan reerku waxay ku falaayeen maadaama nidii mishaartana wax guriga lagu dhisayaan jirin iyo sidoo kale alaabta guriga lagu nadiifiyo ayaa rasiidkaas qofkaas soo iibsaday rasiidkaas la daba galay maadaama meeshii laga soo iibsaday meheradii laga soo iibsaday la garanayo kadibna CC kamaradu waxay qabatay wiilkii Nathan inuu yahay qofka isagu alaabtaas soo iibsaday 60 saacadood oo wareysi iyo istaba jooga markii lagu hayay kadib ayay iska qarteen wiilka baa wuxuu yiri ma doonayna anigu dilo doonayna ka bajiyo qulaata si aanu eedbiyo aan u boorasay dadka waaweyn ula tacaamusho si intan xanaaqis qaban kar waaye ayaan ciijiye saas yiri waxaanu yiri inantaas aan isla soconayaan bashoona waxba arinta kama yoogeen yani qof guriga jooga qof kale markay ismaagayaan oo ciijinayo buuq iyo حتى كل قف كل مقلة لكن ما كرني هذا شيء أيد المقلوبية أنا ناس عادي سيتيبه ساس مركوب وحول أنا دلي لكن دنين عن وكسمهن لكن حقيقة سدا ويكف وقتها واحد شيء يعني بوابين وحاول شيء يعني بوابين هاي لي حاول قرشي إنتان أنت مدرين كهر أيوة بسيب سدي waxaan ayaa alaabahan dhan ah miishaarta gloveska waxaan oo dhan u soo iibsaday yani markii hore ayuu ku soo diyaar garoobay intaan uu jarjaraba ayuu miishaartan uu ku jarjaray u soo iibsaday sidoo kale inanta intuu ciijiyay ayuu 15 toori uu la dhacay yani qof walaalkeed oo dhabayaan noqon laakiin qofka isla soo koreen ee walaaltinimo isku la soo koreen hadii si kadis aad u ciijiso naftu uga baxday mindi toori la dhac kadibna miishaar soo qaado ku jarjar waxa soo dhan yani cadawgaaga qaar ka qalbi jilicsan yihiin inta noocaas ay sameeyaan marka wax kadis u dhacay suurtagal ma ahna waxa soo dhan kadis u dhacaan
sidoo kale inantan shoona weli waxba kama ogeyn yani girlfriendtiisa isleeyahay dembiga maadaama adiga lagu xuraayo adnaha soo raacinin weli waxba kama ogeyn waxa DNA-keedii laga helay maskskii uu muxuu ahaayey arrintan ay ku sameynayeen inanta ay ku jarjarayeen DNA-keedii mid ka mid a ayaa laga helay sidoo kale kiisas markay inantaa dileen kadib bacooyin bay ku guureen kiishash bay ku guureen bacaha ay ku guureen DNA-kii shoonana waa laga helay haddaba sidee u dhacday inantan yani waxay u dhacday hooyadii markay baxday kadib ayaa ninkan Nathan la yidhaaho ayaa wuxuu guriga kusoo noqday isagoo alaabtaas isagoo guriga kusoo noqday inanta wuu ciijiyey kadibna tuuray buu la dhacay marka asagu ma hubo inay dhimatay iyo inay sirirtay markan uu ciijiyey kadib sidaas siduu u hubsaday inuu nafti ka saaray 15 jeer ayuu dooxay kadib 15 jeer mindi markuu la dhacay kadib ayuu jirkeedii qaaday markuu qaaday kadib ayaa maalintii oo dhan guriga iskaga soo noqday maalintii oo dhan reerkii iskala joogay yani ay islaanta marka soo noqotay ku tiri meel inantii moojay lahaayeen waa inan ay dileen oo meel soo dhigeen bay haayeen maalin labaadkii ma garanaysa ay inantii soo celiyeen ay inantii dib u soo qaaday wuxuu geeyey suuligii dhiigga inanta laga helay maaragtay halka suuligaas ayuu geeyey uu ku jarjaray miishaarta ku jarjaray markuu miishaarta ku jarjaray ayaa bacahii soo iibsaday ayuu hilbaheedii iyo googa-aan ku gurguray kadibna bacahaas wuxuu geeyey heerka jaarkooda beertooda bahal yaroo yaala halkaas ayuu geeyey reerkan waa laga shakiyey oo loo yeedhay waxaa la siiyey in dilka ay la qaybsadeen laakiin kadib waxaa la ogaaday in reerkan ka kiraystay meeshooda yar inuu ka kiraystay kadibna halkaas ayuu kiisaskii hilbihii walaashii ay ku jirtay uu ku riday kadib markuu ku riday waa halkaa dhigay haddana halkii wuu ka qaaday wuu soo aasay kadib askartii markii dambe wuu sheegay halka ku soo aasay xamaqnimo halku ka gaadhay tanna iyadna arrinta way la samaysay marka kiiskan wuxuu ku dhammaaday labadoodan waa la xukumay waxaa la xukumay bishii 11 2015 wiilka Nathan waxaa lagu xukumay xabsi daayin inantiina shoonana waxaa lagu xukumay 17 sano ayadna lagu xukumay oo leeyahay way caawisay arrintan siday u noqotay ma garanaysa ayaa arrin bulshada UK oo dhanba saameysay oo ka xanaajisay siday u noqotay waxaad ka garanaysaa jeelkii lagu xiray Nathan ayaa dadkii jeelka kula jiray ee dambiilayaasha ahaa ayaa xataa asaga ka xanaaqsanaa oo mar biyo kulul ayaa wajiga lagaga shubay laakiin waxba ma noqon saas sidoo kale mar waxaa la isku dayay mindi in halkan baa laga jaray laakiin muu dhiman labada jeerba wuu nool yahay laakiin inanta aabaheed baa meelaha social media kusoo qorayay maanta waxaan ku faraxsanahay oo hadiyad dhalasho markaa maalintaas biyaha kulul wajiga laga shubay ku beegnay maalinta inantii dhimatay ee biiki aabaheed maalintu dhashay ay ku beegnay maanta hadiyadeedii dhalasho waxay ii noqotay amba hadiyad ka wanaagsanba ma helayo kaya inanteedii dileen biyo kulul lagu shubo ah marka dadkii jeelka ku jiray ba xataa saga nacab dhibsanaya oo jecel inay nafta ka khaarijiyaan maadaama inantaa waxaas uu ku sameeyay awgeed shaqada intaas ku dhamaatay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaabin hadda leexara faalada xaq roosan ugu qora sida sheekadan u aragtaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh